بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت كدب سنتر برسول عثمان الدفلة قدوميها كدي قاعدة قبل شذا وزير ذا لليرى أقل مدحدا بركة إنشورنس نقاتير تيسبتال ذا يوم مرتشرف تكلم وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودن كانوا وقتين وقت دير ayuu ka soo kabanayay dhibaatooyinkaas ay kamid yihiin kuwa caafimaadka marka dad badan oo ama dhaqaatiir ama howlo caafimaadka mashquul ku ah ama wasaaradda caafimaadka oo nagala jooga caawa agaasimaha guud Dr. Guuleed waxaa mashquul ku nahay arrimahaas caafimaadka qofka markuu xanuunsanayo ma oga marka in maaragtay lacag yar sida haddaba Dr. Shukri noo sheegaysay aad bixiso $30 haddaad tahay arday ama $180 haddii aad tahay qoys oo meel ay ku taalo oo maalinta u baahato isbitaalada aad ku tagto anigoo ka mid ah runtii dadkii wax ka soo diyaariyay mashruucan hadda caawa markaan arkay aad iyo aad aan ku faraxay aniga senator Duflo isla joognay dhaqaatiirna waa nahay laftigeena waa shaqeynaa isbitaalaan maamulnaa waxaan 180 waaba jabanta annaga is qoraynaba caawa laftigeena oo maaragtay qayb ka noqonayna arrintaas runtii marka arrintaasna waxay ku imaanaysaa بول وحلي يراد معناها بولن أو سيد هذا الشيء عبد الحي وشيء وقاران أما وعيمس وحاليا بهال مليون وقف هذا يسقطه وبقول $6 مليون $. العجر ما وحاليا معاونات كدبة ده هالنظام با إن سنتاس دمين بقول $6 مليون مركا واحد بدنا يقبلنا يسا وهنقول يسا العج كسو كردي عافيمات كصوماليات isbitaalada laftooda waxay awoodayaan inay qalab keensadaan waxay awoodayaan horumar in la gaaro cudurrada ugu badan oo hadda wadanka dibadiisa looga aado waa ognahay inuu yahay kansarka oo maaragtay culays badan uga haya marka wax badan oo soo kordhaya waay 2 milyan oo qof haday isqorto 20 milyan aan nahay waa 360 milyan waxaan umaleynaa agaasimaha guud marka inuu hay'adaha caalamiga inta la hadlo u dhihi doono deeq dambe uma baahni annaga isku filan marka in wajigii labaad uu gudbaayo oo waliba maaragtay si taabanaya bulshada Soomaaliyeed sida u dhisan tahay haddii aad tagto wadamada kale waxa la yaabaa qoyska hal ama laba qof kaliya inay ka soo qaadaan laakiin halkan waxa ku qornayd 7 qof inuu yahay qoyska Soomaaliyeed oo ogna average-kiisa 5 caruur iyo hooyo abada isku darto waa 7 marka waxa moodaa mashruuc laga soo shaqeeyay daraasad laga sameeyay oo ka tarjumaya dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee leedahay inuu yahay mashruucan taariikh ahaan waa kii ugu horeeyay oo maaragtay wadanka ka yargala oo loogu talagalay suuqa guud sida daatay Dr. Shukri noo sheegaysay ama mass market-ka wax la yiraahdo hadda waxa leeyahay caawinteena fadhisa haddii aan isweydiino wax caymis naga haystay inuu yar yahay markaan daraasadda sameeyno waxa ogaanaa 100% inay ku jiraan health insurance halkaasna yihiin dadku shaqeeya hay'adaha caalamiga UN-ka ama international NGOs oo ayagu qasab ku ah markay wadanka imaanayaan lagu qasbayo la leeyahay qaata insurance 99 kaleeto wax insurance ma haystaan dad badan waxa jira awooda dhaqaale haysta lacag haysta laakiin suuq ay ka gataan aan heli karin marka tan waxa u maleynaa inay tahay suuq cusub oo soo furmay sida data hadalkay ku furay waxaana la yiri la dheerayn waan idin salaamayaa mar kale والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.